sheekh xuseen faarax imaamka masjidka Rinkaby arrintan ayuu ku guda jiray dadaalkeedana waa uu joogay markii hawshan dhacaysay falkan ilmaha lagu qaadanayna waa uu joogay sheekh xuseen soo dhawow walaal xudayfi waan dhaawahay alxamdulilah waxaa laga yaabaa khadka markii uu telefoon soo galo inuu baxa baa dhici karta marka ka raalliho insha allah arrinkaas waa tahay sheekh xuseen sidee wax u dhaceen arrintan gabadhan walaasheen ah warbixina gasay بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa dadka walaalaha ay dhageysanaya dal iyo dibadba waan idin salaamaya assalaamu calaykum arrinkani waa arrin aad iyo aad maaragtay murugo u leh ilaahay waxaan uga baryayaa biasmaa wa sifaati lculya in ilaahay subxaanahu wa tacaala walaashaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo walaalka gabadha dhalayba ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaba murugta ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha ka qaado way jirtaa arrinkaas arrinka faadumo arrin muddo soo socday buu ahaa alxamdulilah magaalada Stockholm bay usoo guudhay markii ugu horeysay oo qolada kamuunka ay la xiriirtay qolada socialka aad bay usoo dhaweeyeen alxamdulilah waxaana loo sheegay in maaragtay ilmaheeda ay haysan doonto waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa laakiin shalay ayaa wax badan isbedeleen goobjoog baan ka ahaa way ila soo hadashay qolooyinka iyaga carruurta qaateena waan is aragnay waana ka wada hadalnay arrinkaasi waxaa lagu saleeyey dacwadii hore ay carruurtii ilmihii deganaa magaalada maaragtay muxuu ahaa ay kasoo guurtay ayaa sabab u ahaa marka sababahaasaana ilmihii loo qaatay waa tahay canugan dhashay ma cisbitaalka ay ugu yimaadeen oo ay ka qaateen ha isbitaalkay ugu yimaadeen way joogeen marka faadumo meesha isbitaalkay joogtay alxamdulilah anaa marka qolada maaragtay meesha aanu degannahay socialka la hadlay una sheegay inaan isbitaalkaan joogo waxay ii sheegeen inay maaragtay isbitaalka imaanayaan saacadaasna imaanayaan waa yimaadeen laba dumar bay ahaayeen waan wada hadalnay hadal dheer baana dhex maray laakiin iyagu waxay wateen qorsho ah inay carruurtaasi ay qaataan sababta waxay yidhaahdeen warbixinaha ay soo gudbiyeen kamuunka ay deganeed ayaa waxayd warbixino maaragtay khatar ah oo maaragtay arrinkaas baana maaragtay iyaga arrinka hore isaga bedeleen micnaha degmadii marka hore ka soo guurtay ayaa warbixin ka soo gudbisamaya ha warbixinta waxay ka timaaday degmadii hore ka soo guurtay iyo qaybtii xanaanada ayaa waxay u soo gudbiyeen kamuunka aanu degannahay arrinkaasi saacado badan bay iyagu ay maaragtay say ii sheegeen ay ka shirayeen dhinacyo badan isla fiiriyeen iyagana xiriir bay la soo sameeyeen taasi ayaa keentay inay yidhaahdaan annagu arrinkan maadaama uusan yahay waan uga adag yahay waxaanu qaadanay in sharciga la yidhaahdo LVO aan maaragtay ilmihi aan ku qaadano ilaa iyo maaragtay guddoomiyaha maaragtay dhinaca siyaasadda u qaabilsan degmooyinkan aan degannahay uu qalanka ku duugay arrinkaas ayaa sabab noo ahaa ayay ku tilmaameen marka waxayna yidhaahdeen maadaama arrinkan emergency yahay berrina aan isku nimaan oo maanta ahayd inaan maaragtay wixii imaanaya wixii kale aan ka wada hadalno waa tahay laakiin sheekh xuseen canugan yar ee dhashay bina yidhaahdeen soo ma ahayn in la nuujiyo canugii walaal waa arrin horta aad iyo aad maaragtay murugo u leh oo maaragtay naxdin leh qof walba oo maaragtay damiir leh ama maaragtay ama qofku rab ha ahaado aan dareemaya maaragtay xataa maaragtay dadkii isbitaalka ama maaragtay ama ka shaqeynaya shaqaalaha ahaa iyaga xataa ay saameyn ku wada yeelatay laakiin iyaga xataa dadka qaadanayay xataa way muujiyeen laakiin waxay yidhaahdeen waxyaalaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay oo aan rabin inaan maaragtay dhinacan meediyadan dadka halo sheekh xuseen ما مقشاد هلو ها سفي عنا كولا صعنا هاي هروت هروت وحن كعصرنا دتك وعي شيخ حسين انا وعيتان كجوجيان ان شاء الله هاي marka alxamdulilah dadkii dhan baa warbixino iyo raadinaya marka waxaan wuxuu xagee baan maray adigoo raalli ah waxaan maraysay markii gabadhii la yimiday ilmihii ay ku yiraahdeen waan qaadanaynaa oo aad tiri ilmaha inay nuujiso oo hala joogaan aad tiri ha maasha allah waan isla soo qaadnay sababta wuxuu sharciga dhigayaa oo sharciga Suudaan kamid ah oo qodobka aan soo qaatay kamid ah in hooyada iyo ilmaha meel in lagu xareeyo
in meel maaragtay horay oo dad badan oo saas ugu dhacdeen aan uga shaqeeyey in meeshaas lagu iyaguna ay baaritaankooda ku bilaabaan laakiin iyagu waxay ku andacoodeen oo arrinka ahaa sababta waxa waaye waa sharci dowladeed dhibaatooyinka ay maaragtay ka yimaadeen dacwada iyo waxyaalahaas ayaa waxay keeneen arrinka annaga waxaanu arnay emergency haddana ma geli karno sababahaasay keeneen marka isbitaalka xataa waxaan sii joognay ugu yaraan ilaa iyo maaragtay 2 saac ku dhowaad ayaanu sii joognay waa tahay marka hadda ilmahaas yaa gacanta ku haya ilmahaas dad baa loo geeyey ay leeyihiin dad khibrad u leh baan u geynay bay leeyihiin oo maaragtay xataa iyaga kamuunka ka tirsan xataa carruurta dhalada ku jira maaragtay xanaaneeya sida ay noo tilmaameen waan jecleen waayo waa arrin aad iyo aad xanuun u badan qof walba oo dee kollay damiir lena uu dareemayo oo aan maaragtay aan laga sheekayn karin marka maadaama waxyaalahan ay soo gudbiyeen ayay maaragtay iyagu ku andacoonayeen ay sheegayeen oo ah maaragtay kumuunkii hore ay deganeed ama degmadii hore ay deganeed ay soo gudbiyeen waa tahay marka degmadii hore warbixintay kasoo gudbiyeen ma idiin sheegeen oo ay arrinkan keenayo in xataa ilmo dhashay hore laga qaato way sheegeen arrimo maaragtay khatar ah dee horey ay u sheegeen ama maaragtay ama ay waalidka ay ku tilmaameen iyo carruurtii hore oo dacwadoodii waxyaalo badan oo isku jira ayaa ka mid ahaa aan u aragnay inay maaragtay ay khalad tahay maadaama dee sharciga waa tahay sheekh xuseen qadkii ayaa ka go'ay waxaan rajeynayaa in sheekh xuseen oo nagu soo laaban doono hadduu allah wadsarley ogolaado arrintan waa arrin aad iyo aad u xanuun badan waxaan rajeynayaa inaa hooyada Soomaaliyeed usoo duceysaan meel kasta oo aad joogtaan runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan sheekh xuseen ma soo laabatay waa soo laabtay may maqashaada kuma jeedno aragtidaada naga maqan waxaan rajeynayaa sheekh haye waxay kuu maraysay inaad kamuunkii kala hadasheen ama kuwii aad tidhaahdeen hore ayay u dhacday in ilmo meel la isugu keeno maxaa meel la isugu keeni laadihiin sida idinkoo sharciyada u tiigsanaya walaal marka ugu horeysa walaalaha maaragtay na daawanaya waan ka raali gelinayaa sababta teleefankayga awalba soo iska mashquul badnaa ayaa haddana arrimahan jiraan oo dad badan soo wacayaan walaalaha waan ka raali gelinayaa marka waan u sheegnay inay arrinkan maaragtay ay isku dayaan sidii ay maaragtay hooyada iyo ilmaha ay meel isugu geen lahayn maadaama aan horeyna aan uga shaqaynay marka iyagu waxay ku andacoodeen anoo raba inaan sii guda gelin maaragtay arrimaha jira oo maanta aan kula hadlaya xataa kulan baan annaga iyo waalidka aan wada yeelanay iyo qolooyinkii wayna tilmaameen waxay yiraahdeen maadaama waalidkan horeyna aan aqoon dacwooyinkana laga soo gudbiyey annagu waxaan rabnaa inaan maaragtay annaga iyo waalidkiina maaragtay oo iyagii waxaan dhahnay inaan maaragtay utreen inaad idinku si khaas ah arrintii aad u bilowdaan oo baaritaan ah marka insha Allah khayr badan baan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa waayo waxa qadiyadu waxay ku lug leedahay carruurtii hore oo la qaatay iyo kelimooyinkii iyo hadalladii iyo dhinaca Sanvikan oo magaaladan aan hadda aynu joogno wanaag baa na dhex maray laakiin wanaagii iyo in maaragtay ilmihii la siinayay waxaa bedelay arrinkan gadaal ka yimaaday walaal Xudayfi waa tahay adigoo aad u mahadsan marka waalidkii ma la kulantay carruurtan dhashay Faadumo iyo odageedii iyo ehelkii maxay dareemayaan arrintood waa sidee waan kuu sheegay oo waalidka waan goobjoog baan ka ahaayo qofkii ugu horreeyay ay maaragtay ay soo wacaan baan ahaa oo maaragtay arrinkaas joogay iyo aniga iyo walaal Cabdirashiid oo isagana khayr badan Allah si isagana khadka ku jiray oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca socialka iyo maaragtay heer sare ka joogay arrintan dacwadan aniga isaga aan isla wadnay iyo looyaradooda laakiin anigu waxaan shakhsiyan qofkii ugu horreeyay ay la soo hadlaan waana u imaaday waan is aragnay maantana waan is aragnay waa dareemi kartaa waalid ilmihiisii laga qaaday oo sheekh Xuseen arrintan muddo ayay soo jiitamaysay gabadhan qayladhaanteedii dunida meel kasta ayay gaartay dhibaatada haysato meel kastana waa laga hadal hayay arrintan goorma ayay idin soo gaartay markii Stockholm timid bas hore oo la socoteen horey baan ula socday ilaa iyo intii ay Sanvikan ay gabadhu ay maaragtay arrinteeda dacwadeeda socotay
dhowr jeer baan aniga cabdirashiid anagu aan tagnay oo maaragtay waqtiganaga iyo juhdiganaga aan ku bixinay hataa intays arrinkan dhicin waxaa jiray ilmaha labada waaweyn in maaragtay gurigooda lagu soo celiyo afarta yaryar iyaga xataa kulankii u dambeeyey oo bishii June dhacay oo samarkaas soo galay waxaan isla afgaranay in maaragtay muxuu ahaa la bilaabo in wada shaqeyn maaragtayna waalidkii iyo maaragtay muxuu ahaa iyo waalidkii iyo carruurtii marka arrimahaas oo dhan baa jiray tan kale oo ah in ilmaha caloosha ku jira taasina waa horay baan aad oola socoteen oo dee iyadaaba ka hadashay marka wada shaqeyn badan baa nala socday juhdi badan baanu gelinay looyaradu way ku jireen wax walba waa lis imtixaamaya dad muslimiin baynu nahay ilaahay wuxuu leeyahay xasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamanna wahum laa yuftanuun dadku waxay u maleeyeen inay yidhahdaan ilaahay kala reeyo waa la imtixaamin gabadhan familkan ani waxaan oran karaa imtixaan ilaahay subxaana watacaala baa ku dhacay wamaca dalika waana dad maasha allah markaad fiirisid sabar iyo dulqaad tira badan leh waxaan kaloo aniga aan maaragtay fursaddan ka faa'iidaysanaya aan rabay walaalaha inaan usoo maaragtay aan usoo jeediyo walaalayaal waxaan kusoo gabagabayn lahaa hadalkii markii la qaadanayay gabadha aabihii gabadha dhale uu yiri oo dhagteeda maaragtay iyo qalbigayga kusoo dhacayay maadaama ay markii gabadha la qaadanayay aan waqti badan aniga iyo qolooyinkaas la wada joognay hal eray buu yiri eraygaas oo ah inuu yiri maaragtay haddaan maanta aan ahaan lahayn qaran Xuseenow dhibkan inaguma dhici lahayn waa arrin run ah oo maanta markaad fiirisid ama Hargeysa joog ama Boosaaso joog ama maaragtay ama Garowe joog ama Muqdisho ama Kismaayo meel walba aad joog maanta waxa waaye dadka Soomaaliyeed xaqiiqiyan way ku dhiban yihiin meel walbana waxa waaye dhibaato ka taagan qarannimada iyo dhulkanaga aan iska burburinay oo aad hadda arkaysid xataa inaysan maaragtay aysan wax natiijo ama lagu farxo aan la helin ama wadaad noqo ama maaragtay muxuu ahaa ama ku baarlamaan ku jira noqo ama ku madaxweyne ama ra'iisul wasaare sheeg amaam Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala birita maalinta qiyaamo waa lidin weydiin doona waayo qof walba raciyadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa weydiinaya shacabka Soomaaliyeed waa ku baaba'an yihiin waa ku bahdilan yihiin Soomaalidan garan waxyaalahaasna waxa sabab ah dhulkaagi oo aan adigu maanta aadan maaragtay muxuu aan ku deganin aan nidaam aan system lahayn ka shakhsiyan ilmo badan oo la qaatay dad dawladooda leeyahay aan iraahday maxaad ila soo xiriirteen dawlad baaba leedihiin qaran baaba leedihiin aan ku iraahday baa jiray markii la fiiriyo marka waxa maanta ku dhacay walaashay maaragtay Faadumo Ilaahay iyo Maxamuud Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah barakeeyo waa wax qof walba ku dhici kara waxa si dheer oo ah kamid ah dadku hadalla badan inay iska yiraahdaan dayac baa jira iyo saan baa jira iyo waxyaalo aan loo baahnayn inay markaan khadadka ay ku hadlaan waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba uu imtixaamaya imtixaankaasana la wada maraya waalidkan ilmahoodu waa jecel yahay maanta waalid maanta ilmihiisa maaragtay dayacayaan maanta waayo waa wax maanta waa waalid walba wuxuu jecel yahay horumar buu u jecel yahay wanaag buu u jecel yahay billahi alaykum waxaad fiirisaan dadkaas hadalladaas ku hadlaya oo qaarkood idhahaya Xuseenow maxaasan u dhacday ma u maleynaysaa maanta waalid guri cidla maanta fadhiya sariirihii ilmihii iyo wixii dhan wada fadhiya damiirka maanta adiga ku siinaya maanta maxay tahay arrinkaana ma aha hooyooyin badan iyo waalid badan carruurta laga qaatay alxamdulillah dad badan baan soo celinay tan laakiin waa imtixaan min Allah subhanahu wa ta'ala marka waxaan dhihi lahaa hadda hooyada gurigeeda may ku soo laabatay mase wali cisbitaalka ayay joogtaa may isla shalayba waan maxuu ahaa anaa soo qaaday iyada iyo maaragtay odageedaba ana guriga ay maaragtay Stockholm ka degan tahay aniga maarka geeyay alxamdulillah waa dareemi karaa kollay waa qof iimaan leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyo waa dareemi kartaan kollay raggu markii la fiiriyo waxa uga xanuun badan dumarka waayo waxaan arkaynaa fooshii xanuunka badneed bay soo martay oo waxaan arkaynaa Maryama waxay tiri yaa laytani mitu qabla hada wa kuntu nasiya mansiya bay tiri intaan markay maan iska dhintay tiraaday waad arkaysaan reer bal wada leeyahay nin walba xaas buu leeyahay marka ay maanta ay sariirta ay saaran yihiin oo laga dhalinayo siba khaasatan dadka qurbaha ku nool oo maaragtay xaasaskooda garabka ka fadhiya marka ay hooyooyinka maaragtay ilmaha laga dhalinayo waa dareemaysaa xanuunkaas iyo maaragtay dhibaatadaas ay soo kacday hooyadaas ilaahay waxaan ooga baryaynaa imtixaan bay martay in Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala oo imtixaankaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ka faydo waxaan rabaa walaalayaal ilaahay aynu u barino biidnillaahi subhanahu wa ta'ala niyo ayaan qabaa kama quusanayay waa qof iimaan leh maantana kulankana khayr badan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeynayay mid baa waa tahay hadda rajadu waa sidee marka arrinta mudaaharaadka nooga waran mudaaharaad waxba horta ma taro mudaaharaad waxa ma taro ilaa inuu wax sii xumeeyo ma ogiye sababta mudaaharaadku marka xuquuq ka maqan aad raadsanaysa ayuu mudaaharaadku yimaadaa sababta waxa iyagu hadda ay ku andacoonayaan ama dadkan yar komunkan waa komunada
ugu fiican markii la fiiriyo xaqiiqiyan oo maaragtay muxuu ahaa annagu aan mandiqadan aan degannahay laakiin waxaa saameyn ku yeeshay oo maaragtay ta'siir ku yeeshay oo bedel ku yimaaday waxyaalihii kamuunkii hore oo aan anigu goobjoog ka ahaa oo xaaladooda anigu aan la socday ay maaragtay ayaa wax ka bedelay marka mudaharaadku waxba tari mayo waxay u baahan wada shaqayn iyagii lala shaqaysanayo sharcigan iyaga ayaa soo dejistay dhinacii maaragtay maxaakimta iyo dhinacaas in la maro in ilaahay subxaana wa tacaala la isku xiro in maaragtay ducada ilaahay subxaana wa tacaala loo baryo ayaa maaragtay wax walba mudaharaadka ka fiican mudaharaadku ma aha horay ugu horreysay markii aan samaynay waxa ugu horreeyey oo khibradna ku qaadanay aanu aragnay walaal aamino oo maanta maaragtay ugu horreysay carruurteeda laga qaatay marka taas baa marka jirta xudayfi waa gartay aad iyo aad u mahadsan tahay sheekh xuseen maxaa hadda kula dardaarmaysaa dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya أول شيء وحن horta isku dardaarmaynaa Allah subhanahu wa ta'ala cabsidiisa qofku wuxuu ku badbaadi karaa fi dunya iyo fi al-aakhirah ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama ay dhageysanayaan walaalayaal midnimo ayaa guul lagu gaaraa midnimo ayaa wanaag lagu gaaraa midnimo ayaa horumar lagu gaaraa midnimo ayaa lagu noolaadaa waxaan oran lahaa inaad wada midoowdaan baa horta wax walba ka fiican waxaan kaloo saan hore u soo sheegay aan oran lahaa dadka maanta maaragtay ama Soomaaliya ama maaragtay muxuu ahaa gacanta ku haya ama maaragtay ama maamula meel walba ay joogaan ama haddii ahaan leeyahay kuwa wadaada ah ama haddii ahaan leeyahay kuwa dawlad ama haddii ahaan leeyahay kuwa maaragtay dawladda dhaxa ama dadka baarlamaanka jooga Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala aynu ka uga baqno shacabkan ilaahay waa idin weydiin doonaa biin ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta gobolaysi iyo qabiil iyo wax kale waxba tari mayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dad muslimiin oo naga dhigay huwa samaakumul muslimiin ba Allah subhanahu wa ta'ala dad walaala abu naga dhigay waynu aragnay waxa la rabaa gurigaaga inaynu wada hagaajisan ayaan looga baahan yahay hadduu maanta guriga aniga ii hagaago adigana waa ku hagaaga hadduu maanta iga xumaado guriga adiguna waa ka xumaaday aan isu soo duceyno oo gacmaha aynu isqabsanno walaalo baynu nahay siiba khaasatan dadka qurbaha jooga waxaan oran lahaa midnimadiina iyo wadajirkiina maaragtay muxuu ahaa ku wada midooba ilaahayna waxaan ooga baryaynaa hooyadan iyo hooyooyinka la mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu murugada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka faydo qof walba waxaan oran lahaa inaad maanta qalbigaaga aad gelisid adigoo booska walaal Faadumo maanta taagan haddaad hooyo tahay iyo haddaad aabba tahay inaad maanta aad gelisid ayaan oran lahaa waxaan oran lahaa nin walba ilaahay baanu ka rajaynaynaa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama quusto iyagana waxaan kula dardaarnay as-sabr inay sabraan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tadarruc in noqdaan waxaan waa imtixaanka ugu adag oo ugu dhibka badan waxay tahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa alla ka fidneeyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nagama fidneeyo Soomaaliya midooba Soomaaliya dantiina ka fakara Soomaaliya qarannimadiina raadiya Soomaaliya isu tanaasula taas ayaa dan ku gaaraysaan waana mahadsantahay